annaga haddaan nahay baraaruga bulshada banaadir waxaan u taaganahay waxa waaye inaan xisbiyada dadkana ay bartaan xisbi walba maalin uu leeyahay maanta waxaa nasiib u helay oo barnaamijkooda halkan ku soo bandhigtay waa jiilka cusub shakoowaad ayaa waxay leedahay maanta aan ku falanqayn doono kulankan ayaa waxay leedahay tallaabo noocee ah ayaa xisbigaaga iyo adiga aad qaadi doontaan si aad u xoojisaan xoojinta dimuqraadiyeynta ama dimuqraadinimada maadaama uu gobolkan ama magaaladan aysan horey u haysan mayor ama governor si dimuqraadiye ah loo doortay tilaabo noocee ah ayaad u approach gareyn doontaa ama aad qaadan doontaa su'aashaas horta waa su'aal muhiim ah laakiin waxaan u malaynayaa in dhib sidaas u weyn aan wajihi doono kalsoonida dadweynaha sidee u hubin doontaa hufnaan go'aan qaadasho dadka deegaanka ay u dareemi doonaan nidaamkaaga inuu yahay nidaam cusub oo run ahaantii nidaam iyaga matalaya oo ah mid dimuqraadi ah sidee kalsoonida dadweynaha ku hanan kartaa nidaamkaagana ay u dareemi karaan inuu yahay nidaam dadweynaha ay aaminsan yihiin inuu yahay dimuqraadi wuxuu wax badan la dhibaatooday accountability la'aanta la xisaabtan la'aanta oo la xisaabtanka Soomaalida way iloosho badan tahay shalay wixii dhaco maanta kama hadasho isla xisaabtanka talaabooyinka noocee ah qaadi doontaa oo isla xisaabtan la'aanta waa waxa halkaan na dhigay waxaan aaminsanahay dalka midaan ayaday la socotaa la xisaabtanka iyo musuqmaasuqa waa isdaba socdaan maadaama waddanka intuu dhisnaa governorada ama duqa magaalooyinka ay ku imaanayeen selection oon la soo magacaabay sidee baa uga hortegi doontaa xashada siyaasadeed horta reer quraacay reer qansax oo waxa halkaan na dhigay waana waxa aan u raadinayno dawo in ka badan 40 sano horta isku imaadkayna galabtaan isku nimid barnaamij laba kooxood aan kala nahayo koox xisbi ah iyo kooxdayna baraaruga bulshada banaadir